oo aan isku dayna maanta aan garanayno magaalo madaxda ku meel gaarka Jubbaland hay-ad wal oo dawladdu ay leedahay inay maanta leedahay deegaan iyo xafiisyo ay ku shaqayso oo waliba aad u qurux badan oo meel waliba ayna lahayn iyo kuwa marti iyo meel loo dego iyo meel dadka mudnaanta u leh ay isdejiyaan intaba waxaan ka shaqaynay inaan midayno dhaqaalaha oo hadda qaybtiisii ugu dambeysay aan ku jirno iyadoo aan ku ammaanayo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda Jubbaland sida hufnaanta leh ay isku dayeen oo maanta dhaqaalaha ka soo gala ee meeshaan aan joogno hadda ka jira qof walba haddii la siiyo passwordka uu ku galayo oo garan karayo processku siduu u socdo iyo waxa baxaya iyo waxa soo gala sida yihiin waxaanu ka shaqaynay inaan qabanno sharciyeyntii dhulka waxa Soomaaliya dhibaatada ugu badan ee ka jira wuxuu yahay sabaro looga jiri jirtay damanyaalo minishibiyaalo dawladdu way waxaysantay intay dawladdu burburtay inta ka waxaysan baa ka badan dhibka Soomaaliya ugu badani wuxuu haystaa oo ka dhacay dhul buu ka taagan yahay markaad geeska ugu shisheeyo ilaa ka hooseeya ka bilowdo taa waxay noo saamaxday inaanu raadino yaa aqoon u leh oo shirkado keeno oo aan ka shaqeyno bal inaan dhulkii iyo deegaanadii iyo mulkiyaddii iyo intii baan dib ugu noqono oo haddaad maanta kismaayadan aan joogno soo qaado markaad sharciga dhul ka hadasho waxaa lagu leeyahay nin Mombasa jooga buugii haya iyo mid Rooma jooga yaa hebel baa la soo weydiin intii kalena Cabdulla Shidaayi iyo wax kale wada gashay taas waxay keentay inaan maanta ku faanayno magaaladan aan joognay ka bilowno in la xidhay ringa road lagu xidhay naqshadeedii hore lana sharciyeynayo dadkiina sharci la aamini karo deyn uu ku qaadan karo bangiyo uu kula tacaamuli karo loo sameeyo qof waliba maanta uu garanayo hantida uu leeyahay iyo intay leegtahay meesha uu socdo waxaanu ku guulaysanay qaxooti aad u tiro badan gobolkani wuxuu ahaa 80% qaxootiga Kenya u barakacay meeshay ka baxeen gobolkaanu waxaa guul noo ahayd inaanu diyaarino oo aan dejinno qaxooti badan oo barakacayaal ah inay maanta intay soo noqdaan guryo loo dhisay shaqo abuur loo samaynayo iyaduna waxay noo tahay shay guul ah oo aan leeyahay maanta waxtar bay idiin tahay reer Jubbalandna waxay bari uga tagi doonaan ayay noqonaysaa waxaan damacsanahay qorshaha mustaqbalka Jubbaland inaan xoreyno deegaanka naga maqan ee shabaabka gacanta ku hayo oo ay ugu horeyso caasimadii dawlad goboleedka ahayd oo aan u furno deegaanada Jubbaland inay isu socdaan iyadoo aad garanaysaan culayska ay leedahay Jubbaland ama shabaabku su'aal baa isweydiin leh maxaa culayska ugu badan ee shabaabka saaray Jubbaland maxay ku doorteen qof walba oo dagaal raba inuu galo oo jabhadeynaya meesha uu Soomaaliya ka geli lahaa waa iyada istaraatiijiyan oo maxay tahay istaraatiijiyadu waa mid jabhaduhu waxay ku noolaadaan dad kala duwan oo kala hayba oo Soomaali isugu yimaada oo isku diri karaan waxaad ma garanaysaan qaacidada aynu ka dhaxalay nimankii gumaystayaasha ahaa waxa la yiraahdaa divide and rule ama fariq tasud qayb iyo xukun in macnuhu uu yahay dadkan mujtamacan Soomaalida kala duwan see loo xukumi karaa waxa loo xukumi karaa loogu dhaxnoolaan karaa in la isku diro oo reer quraco kaalaya reer qansaxo kaalaya reer gumar maxay yiraahdeen waxa lagala dagaalamaya inay intaan noqoto taasaa asala way u saamaxaysaa markaa midaasi cadowgu inay u noqoto base oo maanta oo dhan ay qabaa'ilka dhexdooda ka shaqeeyaan waxaa kaloo qayb labaad u ah geographically meesha ay dhacdo iyo nooca ay u samaysan tahay dhul geeda ah webigii leh badii leh kayd isku xidhan leh lagu dhuuman karo ugaadhii leh siyaalo badan ay u ninkii jabadnimo soo maray baa garanaya faa'iidaday leedahay taasina sabab bay u tahay sababtoo meel carxanaaf oo geedna lahayn biyana lahayn qofna kuma noolaan karayo sababtaas waxay keentay markaa labadaas sababood iyo kuwa kaloo lagu daray inay keento shabaabku inay ka dhigtaan saldhig waxaa u sii weelisa xuduud aad u dheer baan Kenya la leenahay waxaa jira dhul kaymayd isku xidhan oo Soomaaliya 80 kilomitir gudaha ku jira ilaa 100 iyo above kilomitir Kenya gudaheeda ku jira
oo waa aanu geli jirnay waxaa la odhanayay badamadu ruuxii gala khamiiskii rasuulka qof xidhay oo kalaa tahayo macnihii khamiiskii rasuulka waxay uga jeedaan cidina kuma arkayso taasaa sababaysa markaa in deegaanadaasi la galo oo markaa ilaa Kenya iyo wadamada kale iyo Tanzania looga sii gudbaayay waa wax u saamaxaysa sababtoo markuu yiraahdo Ethiopian ka galaya oo dhul cidlo oo geed gaabaho geel jiriiba ku gubtay meel uu sii mara malaha laakiin tan meel uu ku qarsoomi karo sababahaas ka kalifaya asbaabahaas oo dhan waxay noqotay Jubaland inay noqoto madaxa shabaabku meesha yaalaan taas daraadeed baa waxaan mar walba ugu soo celinaa war dagaalka shabaabka aan gallo war nala gala war yaana raacaya oo aan raadinayna ciddii nala geli lahayd hawsha nagala qayb qaadan lahayd waxaan ka shaqaynaynay daadejinta maamulka waa 3 marxaladood 3 level baa maamulka dawladnimo ee federaalka ee Soomaaliya uu yahay levelka dawladda federaalka heer state iyo kii councilada dawladaha hoose waxaan doonaynaa isxaqaayashadu si ay u yaraato oo maanta degmadu ayna u oraneen dhiisiga lanoo soo bedelay waa nin xun ama kana inay meel walba yeelato dawladihii hoose oo ay gudoomiyaha iyo maayarka iyo xafiisyada kale kulli dawladda state-ku waxay ku yeelanaysaa oo kaliya waxay noqonaysaa laamaha amniga inay noqoto wax iyagu ka soo baxa oo heer county ah ama heer dawladaha hoose ah oo taana aan doonayno inaan hadda iyadoo barnaamijkaasi mar hore uu dib looga dhacay inaan hadda dhammaystirno tijaabada mashruucaasi aan bilowna hadda degmooyinka ugu horeeya sanadkan bilowgiisa insha Allah inay naga dhamaato inaan dhaadhicino oo deegaanadu aynan soo cabanin oo ina maamulka cabanin sababtoo qofku dadkii soo dhistay markay la joogaan waxay garanayaan qofkaas iyo iyaga waxa ka dhaxeeyo qofkana uu garanayaa laakiin haday noqoto warqad baa laga soo qoray wasaaradda arrimaha gudaha iyo hebel baa la keenay hebelkii habeenkii uu la soo hadli karaayo Sheekh Xuseen Furre isugu sheegi karaa marka daadejinta maamulku waxay noo tahay qayb priority noo waxa kaloo noo weheliya midaynta dhaqaalaha oo aan doonayno accountiga single treasury accountiga ka furan maanta Kismaayo ee wasaaradda maaliyadda in degmo walba iyo tuulo walba shilinka baxaya iyo dhaqaalaha soo galaya ka baxayaaba halka xisaab inuu maro qorshaha noogu waxaysan waxaan rabaa dhammaan inaan u mahad celiyo bulshada reer Jubaland midnimadooda isku duubnidooda dadka hadda halkan ka hadlay waxay ka hadlayeen iyo waxa ay ka shaqeynayaan iyo wanaaga Soomaalinimadu ku jirto oo mar walba lagu tilmaamo reer Jubaland inay yihiin dadka ugu Soomaalisan maxaa keenaya Soomaali oo dhan baana kuma kala maqlin jareer iyo jile baajuun iyo baantu iyo mid kale Soomaali qabaa'ilkeeda qurac iyo qansax iyo garas isku wada daro Soomaali baan ka koobanahay taas daraadeed baa waxa asala midnimada maanta aynu ku wada fadhinaay aan uga mahad celinayaa shacabka iskale waxa keenay ma aha hoggaan ma aha baarlamaan ma aha ciidan waxa iskale ee arrintaas sameynayay waa shacabka iyaga iskale maanta qofku guriga uu ka soo tooso waxa uu yahay qof waliba haday hooyo dhib badan oo habeenkii calaacasha aabba habeenkii qabiil iyo wax kale uga sheekeeya walaal wax isku dira mujtamaca hadduu dad noocaas ku jiri lahaayeen maanta wanaagaan haysanna ma inaan haysanin waan geli doonaa dhibaatooyinka kale ee Jubaland ka jira iyo waxa lagu hayo waxaan rabaa inaan ka hadlo dawladda federaalka Soomaaliya waxay xorriyadda qaadatay 1960 waxaa ka horeysay dawladdii Cabdullaahi Ciise ee daakhiliyada ahayd waxay soo martay marxalado aad u adag oo aad u kala duwan waxa garan karaya qofkii in badan oo kamida soo joogay anu dawladdii hore ee 9 sano ahayd waan yaraa markaas laakiin waxaan ogahay intii ka dambeysay iyo xaaladda la soo maray say ahayd iyo dawladnimada Soomaaliya sida ay ahayd waxaan galay burburka maxaa keenay waxaa jiray maamulkii oo raagay iyo cilado badan oo markaa la tabanayo waxay keentay inay jabhada baxaan iyadoo arrintaas ay ka timid dagaalkii 77 iyo ka soo noqodkiisii laga bilaabo wadanku hoos buu u dhacay
burburkaasi wuxuu sababay dawladdii Soomaaliya iyadoo taagan inay burburto waqtiyadii ugu dambeeyay qalfoof bay ahayd markii xamar joogtay laakiin dawladnimo lafa adag ku taagan maysan ahayn jabhadaa baxay jabhadihii baxay maxay ku dambeeyeen waxay heshiis ku ahaayeen dawladda inay ridaan laakiin wax kale u samaysnaa ma yiri jirin markii burburku dhacay ee maxamed siyaad bare soo baxay maxaa dhacay ray baa loo kala baxayo qoloba meel bay u carartay waxaana dadkii ku hadhay ee joogay maxamed siyaad bare markuu baxay magaalada muqdisho maalintuu baxay waxaan islahaa waxba dhib ma jiro in Cumar Caydiidna way soo galayaan dawladnimadiina way dhismaysaa xageed u baxaysaa dukaankaygiina dib u xadxadhaan rabay mayna ahayn qadartu sidaas sababtoo waxaa taalay wax la isku ogaamayna jirin dawladnimada Soomaaliya jabhadahaasi waxa ka dhaxeeyay isku ogaan aad buu u yaraa wixii ka dambeeyana waan garanaynaa dagaalkii sokeeye halkee buu gaaray dagaalkii sokeeye wuxuu gaaray markay jabhadihii kala tagaan ay isku dhacaan in qabaa'ilkii qoladii dhinac isu wada raacdayba away daarood maxaa kala qabsaday warshani afartii bilood ee hawiye maxaa kala qabsaday nimankii hiraab Soomaaliya marka muduloodkii hawrgii la isku daro ya maxaa kala qabsaday waxaa ka dhacay wax adag oo ciqaaba daarood waxaad aragteen ma dhaxmaray hawiye iska daa digil iyo mirif iska daa away xataa Soomaaliland gaar dawlad tuur leh waxa wixii dhacay baad garanaysaa waxaas oo dhan waxa keenayna waxaan oran karaa ma ahayn wax Soomaalidu ay u qasaday ama iyagu ay lahayd inta badan mashruuc dibadda ka jiray buu alxaq walxaq yuqaal barnaamijkaasi wax badan waxa ku jiray wax Soomaalida banaanka uga baxsan aduudka dambe ee dawladnimo markaa aan ku soo dhameeyay wuxuu maray marxalado kala duwan Djibouti Carta Imbagati tii dambe ee la isugu tagay waxa ka horeeyay soo dare midba nooc bay ahayd Carta waxaa soo baxay niman siyaasiyiin Imbagati hogaamiye kooxeedyadii waa lagu soo daray maxkamadaha yimid muqaawamadii iyo labadii qaybood baa la isku daray Djibouti waa la isugu yimid 500 iyo intaas baarlamaan waa tii la keenay waxay soo gaadhay dawlad aan ku meel gaar ahayn marka laga soo tago TNG iyo TFG iyo markii laga soo tago dawlad noocaas ah la helay waxa garan karaya markaa qofku markuu intaa joogay wuxuu garan karaa waxaan dhacaya waxa uu yahay iyo dhibaatada la soo maray laakiin qof waliba ma qurba joog ma garan karayso ninkii gudaha joogay baa garan karaya dhibaatada dhacday iyo nooca ay ahayd iyo sida ay iyo dagaaladu noocyaday gaadheen ilaa maanta dawladda 2012 la doortay ay noqoto dawlad federaal oo Soomaaliya 2017 February dawladdii labaad ee dhamaystireed la doortay laakiin maxaa meesha yaala maxaa isbedelay maxaa waxa soo kordhay waa maxay waxaan rabaa shalay dawladdii federaalka ahayd markii 2012 la dhisay waxay aad ugu dadaashay bacda shida wa tacab inay samayso isteedyadii la dhamaystiro oo ficlanna way ku guuleysatay oo nidaamkii federaalka uu hirgalo oo deyn cafiska laga hadlo oo resource sharing laga hadlo oo physical federalism laga hadlo oo amnigii laga hadlo oo aad garanaysaan marxaladda la gaaray inay ahayd in markii ay doorashadu dhacaysay 2016 qofku intuu gaarigiisa keligii ka xaysto jawaan intuu tago soo noqonayo wadanku uu xor wada ahaa inta badan dawladdana hadda timid maxaa soo kordhay maxaa isbedelay waxaa jira 2009 markaan shabaabka islaynay hadal aan dhibaa jiray shabaabku qof kasta oo diin lahaa culimo ahaa xurmad shacabka dhexdiisa ku lahaa iyaga wax ka ahaa hebel mana raacaysaa maya murtad baa tahay waxaa lagu ridaynaya waxay tahay masaalixdoodii buu ka hor yimid soo maa waxaan u bixinay takfiir bilmaslaxa waa takfiir ama rido ku saabsan maslaxadooda maanta dawladda federaalka ee jirtay 8 February maxay noqotay haddii
sida ay rabto riyadeeda oo ma anzallahu biha min sultaan xuluma aad ka hor timaado khaa'inul wadan baa tahay camiil baa tahay dad kale aad u shaqaysaa iyaga iyo takfiir shabaabka maanta maxay ku kala duwan yihiin laa farqa bayno wax farqiya oo maanta u dhaxeeya dowladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro kuwana way gaalaysiiyaan kuwana Soomaalida ka saaraan wax u dhaxeeya ma jiro labadaas ay noqotay waxa meesha u yaala waxaa jira dowladda federaalka ma garanayso marxaladihii waddankani uu soo maray madaxda maanta meesha joogtay ma garanayaan waddankani dhibaatada laga soo maray iyo meesha joogo shalay iyadoo waddanka xaaladdu degan tahay bay ka tageen habartay baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yidhi sidaan waxaan aad u qariibsanayaa waxaa la baabi'iyey dhammaan institutionadii dowladdu ay lahayd waxaa lagu xadgudbay dastuurkii waxaa shaqadiisii waayey baarlamaankii waxaa shaqadiisii waayey garsoorkii iyo sharcigu inuu sarreeyo waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowlad goboleedyada waxaa dib loo burburiyey sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya dowlad goboleedyadii iyo dadkii tacabkaa lagu soo dhisay wixii la dhisayey yaa waxay noqotay in dib loo wada burburiyo maxaa loo burburinaya maslaxada iyadu sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelo iyo sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelo waa tii shabaabka ee ahayd haddaad dantayda ka hor timaado murtad baa tahay haddaad yeeshaan Sheekh Xuseen Furqaan tahay muslim baa tahay muwaxida iyagana maxay noqotay waxay rabaan haddaad ka hor timaadana khaa'in wadan baa tahay haddaad tiraa war waxaani nacamla haddaad noqotana adiga ninkii ugu fiicnaa baa tahay waxay burburiyeen dowlad goboleedyadii waxay ku tunteen dastuurkii waxay dib adeegii garsoorkii baa la baabiyey saraynta sharciga meesha ka baxday waa waddankii wuxuu gaadhay inaan la garanaynin cid xukunta maanta ka wasiirka haddaad weydiiso waxa yaala kuma sheegi karayo ma ogi buu leeyahay kan wasiirka warqadda akhriyay warqadda waxa ku qoran xataa waa loo dhiibay ma garanay waxay is hortaageen oo joojiyeen shabaabka dagaalankiisii waxaan odhan karaa iyaga shabaabku mar hadday akhlaaqiyan xagga dhaqanka isaga egyihiin waxyaalo badan oo heshiis iyo xidhiidhana inay jiraan maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisii oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dowladda iyo shabaabku inay hal col u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel u wada taalla ay tahay completely dagaalka shabaab way joojiyeen dhulkii shalay xorta ahaaba maanta gacanta shabaab ku wada jira intaasoo dhan maxaa ka daran ha joojiyeen waxay dib ugu noqdeen qof kasta oo xurmad iyo karaamo lahaa inay maanta dib ugu ciyaareen karaamadii uu lahaa iyo xurmadiisii Jubbaland markaan u soo noqdo markaa iyo dhibaatooyinka dowladdu ay ka geysatay waxaa ka horreysay dowlad goboleedyadii ka horreeyey nin walba in la yidhaahdo sidaa iyo sidaa iyo saasaan rabnaa ma yeelaysaa aw shariifo ma fadow haye iska soco ama in qaado ama si kalean ku yeelaynaa taasi waxay gaadhay Puntland dhibkii laga geystay dadkii lagu laayay koonfur galbeed galmudug waxa maanta ka jira Hirshabeelle iyo waxa lagu hayo torture garaynta waxaasoo dhan markii laga soo tago Jubbalandna waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saarayana ugu badnaa lacag qaado sida yeel war hay ra'yi ma leh ma ra'yi mali warkii Bush 11 September ama anagana raac ama cadowgana noqo intaasay noqotay jawaabta la siinayo wiilasha ay siinayna wiilal yar oo dawladdu wax waxba ka yaqaana ma lacagta lala hororday dadka leeyahay hebel oo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha looga jeedo waa hanjabaado iyo dawlado kale iyo in loo soo kaxaysto la yiraahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa oo waddanka xaaladdiisa halka gaadho waxay noqotay marxaladaha dhabta ah ee dawladnimadii Soomaaliya maanta ay dib ugu noqotay Jubbaland taasaa lagu sameeyay doorashaan galay markaan diidnay inaan waxyaalaha badan ee qoorsiga iyo gudnimada diidno waxa ani maanta sharafiya reer Jubbaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaan u meel mariyo haddaan maanta lacag qaato oo saaka la yiraahdo lacag 20 milyan Axmed oo qaado
afkaygu hal qaaduu qaadaa soo ma wuxuu yidhi Nelson Mandela malqacad baa afkaygu qaadaya South Africa afkayga ma geli karta hal qaadaa afkaygu qaadaa macna ma jiro markaa loo gorgortami karo wax loogu samayn karo waxaan ku yidhi dowladdii federaalka ahayd iyo cidday soo diraysay waraan isu nimaadno wada fadhiisanno dastuurkana inaga dhexeeya buuggaa yarka aynu ku heshiino qof walba xuquuqda dastuurka uu siinaya ha qaato hadduu intaa qofku diida xaggee la geynaya haddii dastuurkii la karaamayn waayo haddii dowladnimadii la waxayn waayo war habeen lagu wada hadlay ma soconaya kaa socod baan taaganna waxaan idhi dowladnimadaan idiin ogol lahay mas-uuliyaddaad leedihiin baan garanaynaa waxaad xambaarsan tihiin baan garanaynaa shay kastaan garanaynaa laakiin waxaan rabnaa in sharcigaan aan ku kala dhaqanno sharci haddii lagu kala dhaqmayo baarlamaankana saanarkee looma galeen adeegii garsoorkana laamihii dastuurigaha kulligood lama baabi'iye maxaa waxaasoo dhan loo samaynaya maalintii dowladdaasi ay lugta la soo gasheen waxay ku riyootay 2020 inay soo noqoto dastuurka la bedelo dowlad santar oo xoog badan laga dhigo 20 sano ee soo socota waddanka waad xukumaysaan baa leeyahay aniga qurbo joog ma dibadda maana tagay laakiin waxaa la igu yidhi maraykanku waa meelaha dimuqraadiyadda laga soo barto waxaan la yaabanahay mas-uuliyiinteedu maraykanka waxay ka soo barteen axsanu dimuqraadiya oo caalamka maanta ka jirta yay hadda bartaan yaa macallin u ah siyaasa forqaawo bilaa calaykum aforqeys dimuqraadiyadda laga baranayo maxay tahay ee maanta lanagu maamulaya waa shay qariib aad bay u tahay wax aad la garan kara maaha maxay timid markaa maanta markaan idhi war doorashadaan leenahay sharcigaana siinaya aanu qabsanno musharaxiintii hala keeno waxaa la yidhi maya noo jooga sidan hala yeelo diyaaradaha ima waa la duqayn waa la qaban kan kulli laga soo tegay waxay gaadhay markii dambe dhibaatadaad ogeydeen ee wasiir intii shalay dacwo lagu soo oogay oo la yidhi dacwadaasaa lagu haystaa oo loo yeedhay oo la yidhi niyo dacwadaa sheekh xuseen furaad ka tahay waxba laguguma laha raalli ahow waan kugu khaldannay oo ka soco la yidhi oo la yidhi waxaa samey yidhi waxaan ma samayn karo waa intuu isagu afkiisa ka lahaa waxaani ma yeeli karo waddankan soo dhisayna dib uma burburin karayo in la yidhaha ma eedaysanaata intii loo yeedho dowlado kale loo soo maray la yidhaha war ii xidha meel loo geliya kadibna maxay noqotay gobolkii in la yidhaha dib ha loo burburiyo waxaa dhibaato noqotay nin baa islaam baa wiil dhashay abkan buu ahaa qof ilmahan hadlin buu ahaa waxay tihi ilaahu iga hadli wuu aamusnaay hal mar buu hadlo wuxuu yihi hooyo sidii kalema ku yeelaa waxay tihi ilaahu iga aamusi waxaa la yidhi dowlad federaalaan nahay dowlad buuxda oo kana waa in hawadii lanoo soo celiyo qoladii aka way haysatay noo soo celiyeen maxay ku bilaabeen diyaaradda xaggaa ma mari karto shacab ma qaadi karto waad ogeedeen kismaayo iyo dhooble iyo wixii ka taagnaa maxay hadda ku dareen gobolka gado garbaharey baar dheere doolow luuq intaasoo diyaaraduhu tegi jireen buur dhuubo hal diyaarad oo maanta tagtaa ma jirto maxaa loo joojiyey diyaarad ciidan wadda keliyaa tegi karaysa sababtoo danta dowladdu kuma jirto kuway soo qaadeen ay xareeyeen maamulladii bay ciidamo u isticmaaleen oy qaadeen oy xareeyeen oo ciidamadii deegaanadii ugu xorsanaa oo aad daraaf garaynaysay luuq iyo inta u dhaxaysa beled xaawo habeenbadhaad soconaysay iyo maanta intay ciidankuu burburiyeen oy qaadeen oo isku direen bay maanta intay baxeen bay wixii ciidana haramcad iyo shabeel iyo dhibaato wax alaali wax ciidan hayeen bay soo qaadeen waxaa la yidhi dhulkaasaan xoraynayna yaa laga xoraynaya ma shabaab baa loo xoraynaya mise waa laga xoraynaya that means caqiidadii iyagiiyo shabaabka ka dhexaysa baan anugu ku eedaynaya inay lugtooda tahayo shabaabku ama islaam haw ama shahaado ama diin sheego mar haddaad ka hor timaado muslim ma tihid idan kuwanna waxaa weeye haddaad tidhaa war waxaan ilama qumana sidaasay taagan yihiin oo taasaa keenaysa markaa maanta barakacayaasha ay cadar iyo sheegaysa dhibaatada maanta beled xaawa ka dhacaysa ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli laysla baaba'ay maanta aad garanaysaan meeshay gaadhay iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay galabsadeen dhibaatada maxaa gaadhsiiyey maxaa dadka loo burburiyey maxaa dadkan halkaa loo gaadhsiinayaa awe dadkii xorta ahaa ee shabaab ka madax bannaanaa ee lagu soconayay maanta waxay noqotay halkaas inay maanta gaadhaanoo
boqolaal kun oo qof oo beled xaawo deganaa intay barakacaan kulaylka aad ogaadeeda maarsa lagu jiro maanta qof waliba meesha jooga uuna garanay waa dhaxalka ay keentay dowladnimada Soomaaliya maanta inay meesha joogtaan oo ayna garanaynin maanta macna loo sameeyo waxaa ka sii ayaan daran waxaa la yidhi war ciidamadan warree hebel iyo ruush goormay coloobeen buuri intii la diyaaradaha maxay turkiga goormaan coloobay oo Soomaali ciidanku u tababaraya ay noqday kuwa dadka lagu laynayo ama haram cadde ama shabeelde ama bahal kale ugu yeedhay waxaa la leeyahay ciidankii turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta beled xaawi iyo doolow iyo intii la keenay shacabka lagu gumaaday waxaan odhan lahaa dowladda Soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirtee war ilmaadeerayaal hawadiina bal cid kale oo noo haysa ha loo dhiibo ciidamadan lasoo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa nagada ay dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaa tababaraysa joojiya shacabka Soomaaliya taariikh bay u geli doontaa anu intaasi waxaan leeyahay waa shay meel looga wareega aan lahayn waa shay meel looga wareega aan lahayn shacabkii maanta in ciidankii shabaab loogu talagalay intii lagu laayo oo ceelsaliini iyo laga soo qaado qoryoole iyo diyaarad lagu soo daldalo marna in la yidhaahdo macalin maxamuud baan rixligiisii baan wataa iyo waxaan tusbixiisii waa kan iyo kanaan yeelay marna la yidhaha cabdisijana ilmihiisu dharkan ay xidhan jireen waan balilqaysanaynaa turki baa lagu soo baray iyo hay-addii nabad sugidda yaa halkaa maraysa hay-ad nabad sugid miyaa jirta maya soorskii wararka ay ka heli jirtay lahayd oo dhan qof kastoo shabaab colla ahaa bannaankay soo dhigeen maxay diidan yihiin shabaab in wax laga sheego oo dhanba diyaaru maaha hay-adda niisa waxay gashay gacan jarmal maaqaama naazigii baa gacanta ku dhigay mahedlar bay u tagtay way ka tagtay dowladnimo Soomaaliya dan Soomaaliyeed inay idna ka shaqayso halkaasay maanta maraysaa waxaan leenahay war cid kasta oo faragelin ku wataay turkiya waxaan leenahay ciidankaaga aad tababaraysa jooji dowlad wax lagu aaminaa ma joogin qatar waxaan leenahay shilimadaada jooji Ethiopia waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socota jooji war qof waliba ha naga daayo waxa la lagu hayo shacabka lagu qof waliba ha qaata eeda uu ku leeyahay meesha waxa ka jira waxaan leenahay reer Jubbaland dagaalkii shabaabka waa laabaynaa waan wadaynaa dowladda federaalka waxaan leenahay dowlad federaal war maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii baa tahay kaale aan wada hadalne miisaa wada fadhiisano dastuurku wuxuu ku siiya qaado wuxuuna siiyana aan qaadano haddii intaa la waayo dee cidina kale xukuntaan raadinayna haddii la waayo dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii la yidhaahdo ama dibad ha joogeen ama gubad ha joogeen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha aan saaxiibka nahay kulligood ha loo gurmado dadkaas daawo dhibaatada ku haysato ee la barakiciyey ee dowladdoodii ay barakicinaysa ha loo gurmado waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada harabcadka iyo shabeelka iyo mukulaasha iyo isku jira la sheegayo waxaad la dagaalamaysaan waa shacabkiinnii iyo ciidankii shalay aad dhufays ku wada jirteen war ilmaadeerayaalo lama qaato amarku hadduu khaldan yahay arrintaa dib uga noqda ninkii ku dhintoona ogow waxaad ku dhimatay adoo daalima oo soo duulay oo dhibaato ka shaqaynaya waxay dowladdu si khalada mar walba u adeegsanaysaa aan ku soo celcelinaya hawadii laguma aamini karo si khalad bay u adeegsatay ciidankii khalad bay u adeegsatay qaranka garoonkii diyaaradaha aadan cadde xageed ka timid Jubbaland baasaboorka dhig waa la xidhaya oo muxuu galabsaday waa muwaadin Soomaaliyeed weliba markaasay si kaloo hoose xataa usii baarayaan waxay la tahay markaa beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba inaan markhaati gelino dhaqankii shalay shabaabka aanu kaga nimid ee ahaa takfiir bilmaslaxa inay iyaguna noqotay khaayin waddan iyo dowladnimo la'aan maslaxada ay u arkaan iyagu inay sidaa tahay maxaa dowladda federaalka laga sugayey dowladda federaalka waxaa laga sugayey dhammaystirka dastuurkii away dastuurkii jawaari wuu tegay isagaa wax ka wadwaday xooshna allaha u naxariisto
xagee lagu ogyahay hadda nothing wax dastuura oo socda oo la isku ogyahay oo meel lagu wadaa ma jiro shaqo kale ku mashquulshay xalu helista khilaafaadka dowladda federaalka iyo dowladda ka dhaxeeya inay ka shaqaysaan maalin walba waxay ku sii shidaysaa dambas iyo gaas oo taana way ka gaabisay la dagaalankii shabaabna meel cidla ay dhigtayoo umaba jeedo maqaamka caasimadda waxaan rabaa magaalada muqdisho iyo shacabka reer muqdisho inaan u tacsiyeeyo reer muqdisho tacab badan iyo dhibaato badan baad ku jirtaana iska samra maanta in wax waliba istaagaan oo dadkii meel ay maraan la waayo oo la isu socon waayo oo dhibaatadaas idinku dhacdo aad baan uga xunaa laakiin waa masiibo guud ayna haysataa mid qabiil ku saabsanna ma aha waa mid shakhsiyaad iyo maamul xumo iyo dalo gaara ku saabsane ha la dul qaato waxaan u baahan nahay arrinta muqdisho iyo maqaamka caasimadda in waddada sharciga loo maro oo arrinta caasimadda iyo maqaamkeeda laga gungaadho oon isleeyahay dowladdan maanta jirtaa mag fulin doonteen markii ilaahay tu kala keenay in la gaadho mooye laakiin dadkaasi inay sidaa ku sii jiraan xuquuq yeelan waayaan jidadkii ka xidhnaadaan hantidooda qaabkaa loo isticmaalo waa dhib kale waxaan leenahay raalli ahaada ilaahay baa idinka boogadhay doone gabdhaha waddada ku umulaya ee jidadka laga xidhay iyo dadka dhibaatadu gaadhayso way gaadhi leedahay inay ka hadasho dowladdu oy tiraa war arrintan caasimadda xaggeen geynaa xilligii xasan sheekh baa la bilaabay weli way socon laadahay halkaasii taaganta waxaa laga hadlayey xalu helidda arrinta somalilan arrinta somalilan jarmallo ma sixi karo qolo kale ma dhammayn karto waxaan leeyahay soomaalidu inay is-ixtiraamto wada hadasho isxaq dhowrto middaas aasaa sida wax u socdaan si aan ku qanacsannahay ma aha soomaalidu reer baadiyaha markii lahaa ee la dagaalami jiray ama laba reer hadday wax isku qabsadaan geedka dad baa loo diraa waa laba nooc haddaad meeshaa wanaag ka rabtana cali iyo cumar iyo xasan baad u diraysaa haddaad walqow fiihi iyo inay qasnaato ka rabtana sugulle iyo warfaa iyo warsa baad u diraysaa waa la yaqaanaa wargeedka nabadda ee soomaalidu iyo arrinta somalilan iyo marka laga wada hadlayo dad ehel u ah loo diro dad ehel u ah oo garan karaya waxa la kala mudan yahay oo garan karaya dadkan waxa ka dhexeeya oo garan karaya waxa lagu bogsan karaa ha loo diro ha laga daayo qalindaarka yaan odhan lahaa hebelow ina kenya waan ku geynayaa meeshaas way ka adag tahay arrinteedu arrintaas saasaan waxyaalahay dowladdu ka gaabisay bay ku jirtaa waxaa intaasoo dhan ka sii daran waxaa laga hadlayay doorasho 2020 doorashada 2020 guddi baarlamaan iyo golo fulin iyo hebel baa yidhi intaa midna waxba kuma socon karaan waxay dowladdu u xubsiibanaysaa extension 3 sano iyo 2 sano iyo 4 sano sababtoo soo noqod la-aan way isku hubtaa markaa si kale kusii jiraan waa inay helaan maxay noqotay in la raadiyo sidii lagu waxayn lahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego arrinta doorashooyinku lagu heshiiyaa ka horeysa waa inay isugu yimaadaan dowlad goboleedyada mas-uuliyadda ugu badan ee waddanka maanta inta farmaajo uu ka taltalinayo iyo inta state waliba uu joogo stateyada ka badan waa talo soomaaliyeed sharci ah heshiis siyaasadeed u baahan stakeholders inay isu yimaadaan dowlad goboleedyada ugu horeeyaan iyo ciddii kale madaxdii hore iyo ciddii kale laga maarmi waayey iyo axsaabta midowday iyo kulli markii la isku daro waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed in lagu gaadhee anaa idhi qofna maanta soomaaliya wakhtigaan aan joogno 2020 baan maraynaa dictatorship wakhtigiisii ma jiro qofna ma yeedhin karay no qof maanta u yeedhin kara shacabkaa soomaaliyeed ma jiro odhan kara anaa sidaa idhi arrinta doorashooyinku waa riyo hebelow soo waxee guddi baan u saaray kan ha la yeelo wax ka soconaya mana waxay u baahan tahay in la isu yimaado la wada hadlo
laga heshiiyo markaasaa waxaa la gaari karayaa waxaa la doonaya wax laga qabto. dhowr qodob oo waxaa jira sidooda looga hadlo aan rabana mowqifka Jubbaland inaan ku caddeeyo. arrinta dayn cafiska 2015 baa la bilaabay xilliga Xasan Sheekh. Jubbaland waxay ka ahayd udub dhaxaad daynta in la cafiyo. caawaanu taagannahay, berri baanu taagannahay, waanu ololeynaynaa, waanu taagannahay sababtoo ah daynta maanta la bixinayo lixdamaadkii iyo wixii ka dambeeyey la galay qofka maanta dhalan doona iyo ka dhashay iyo ka diyaar midkoodna waxba kama oga. in lanaga cafiyaa waxay macno u samaynaysaa shacabka horumarkiisa. diyaar baanu nahay in laga shaqeeyo. waxaan hadda ka hor ka hadalnay war cabashadaa qabna waxay tahay haddaan idhaahdo daynta ha la cafiyo oo hadda intii dayn la cafiyo waxbaa la bixin la yidhaahdo qoladan hawadii xadaysa ee khaladka u isticmaalaysa ee ciidankii qaranka khaladka u isticmaalaysa waxbaa lagu aamini karaa waa maya. laakiin taabal waan isaga imanaynaa. waxaan rabnaa in si buuxda aan diyaar u nahay inaan ka shaqayno barnaamijka dayn cafiska si kasta ay noqoto sababto waa culays Soomaaliya ka dhacaya. maandhood baa la ii sheegay nin baa waxaa la yidhi dayntii Soomaaliya laga cafiyo islaantii jaadka ku lahayd buu intuu tegey wuhi dayntii waa la cafiyey waxbaad igu leedahay. arrinta dayn cafisku waxay noo tahay waxyaalaha aanaan u baahnayn in laga warwareego ee aan doonayno inaan horgal ka nahay. dhammaystirka dastuurka hore baan ra'yiga uga sheegay. waxaan idhi dastuurku wuxuu u baahan yahay guddi farsamo oon hadday rabto Soomaaliba ahayn in loo diro oo iyagu ay soo diyaariyeen ayna noqonin qof isagu dastuurkii dan kale inaan la odhan hebelow orodoo wax ka soo qorqor oo maanta oo dhan una majaro habaabin. wadaadku masale una aqoonin uu majaro habaabiyaa. arrintaas dastuurka waxaan qabnaa guddi farsamo oo ka madax bannaan oo dowladdan masaalixdeeda ka raadinaysa inaan u samayno. doorashada ha la isaga yimaado dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo ciddii kale khusaysahay ha ka wada hadleen. arrinta gobolka Gedo shuruud la'aan dowladda federaalka ha ka baxdo. ciidankeeda ha ka qaado, ha ka baxdo. miiska wada hadallada aan isugu nimaadno. waxaa dowladnimo waad mahadsantihiin. arrinta beesha caalamka waxaan rabaa marka hore inaad u mahad celiyo dowladaha Soomaaliya ka caawiya arrimaha ciidanka AMISOM oo naf iyo maalba u huray wiilashooda inay la dagaalamaan shabaab Soomaaliya dowladnimadii ay ku soo noqoto. reer Jubbaland way u mahad celinayaan kamana abaal dhacayaan. waxaase marar badan timaada walaac keeni kara faragelinno qaarkood oo aan loo baahnayn. waxaan rabnaa dowladaha ciidamadu ka joogaan inay ilaaliyaan sharciga iyo mandateeka ay ku joogaan, inay xakameeyaan saraakiishooda oo mararka qaarkood faragelinnada qaarkeed ee la wada la joojiyo, la ixtiraamo dowladnimada iyo waxa ay tahay iyo Soomaaliya waxa u yaala. waxaa muhiima dowladaha deriskii inay xusuustaan Soomaaliya dhibaatadeedu hadday sii socoto oo kiiska shabaabka uu sii socdo waxaa imanaya oo meesha oolaysa
qolo walba inay meesheeda ugu tegi doonto. waxaan rabaa hal eray oo aad dowladda federaalkii ay ugu dardarsato inaan wax yar ka idhaahdo. Kenya waa waddan aan derisnahay, xuduud 800 aan leenahay. dagaal shabaab bay nala soo gashay, waan uga mahad celinayaa. Jubbaland horta Kenya ma ay tahay la ogaado. dastuurka dowladda federaalka wuxuu awood u siinayana iyadaa leh hal la ogaado. hawl annagu intaa ka badan aan ka leenahay ma aha. laakiin waxaan ka hadlaynaa Etoobiya iyo Kenya iyo dowlad kasta oo ciidan ka jooga waxaan u baahannahay waxa aan ku jirnay ee dagaalka inay nala galaan. wax kaloo annaga Soomaali iyo barnaamijkeeda ku saabsan oo ka wada hadalnaa ma jiro. asalkii waa midaas. waxaan ku soo gunaanadayaa beesha caalamka dhaqaalaha ay ku bixiso amniga iyo horumarka ee dowladda Soomaaliya loo dhigo waxaan u baahnay in dib loo xisaabtamo in lagu noqdo. gacanta la gelinaya aamin ma tahay mise ma aha, dib in loo xisaabtamo ay u baahan tahay oo hawshaa dib loogu noqdo. beesha caalamka waan rabaa sidaas. AMISOM iyo howlgalladeeda iyo waxa lagu bixiyey waxay qabanaysa iyadana in dib loo fiiriyo waan arkaa. gunaanadkaygu dowladda Soomaaliya mas-uuliyiinteedu waxay aad ugu mashquulsan yihiin safarro iyo heshiisyo. Soomaaliya waa dal weyn oo dad ay iska leeyihiin. waxaan rabaa inaan u sheego ka mas-uul Soomaaliyeed heshiis kasta oo qarsoodi ah oo berri soo bixi doona oo la galo cidda galaysaay inaad ogaato in Soomaalidu ayna aqbali doonin, berrina la iskaga daba iman doono. safarrada faraha badan iyo boorsadan la wato iyo waxaa lala wareegaya berri wax Soomaalidu aqbali doonta ma ee qof walowba dowlad waliba ha ogaato heshiis aan si cad loo gelin oo public aan ahayn inaan qarsoodi lagu geli karayn. taas waa ereyga aan ku soo gunaanadayo. waxaan idiin rajaynayaa guul. waxaan idiin rajaynayaa baarlamaankaas inuu si nabada inoogu furmo. waxaan idiin rajaynayaa gogol aan dowladda Soomaaliyeed u dhigno aan wada hadallo. waxaan idiin rajaynayaa gogoshaa ka sokow dhibaatada dadka reer Geda haysta inaan qayb ka qayb qaadanayno. waxaan ku soo gunaanadayaa ciidamada jooga ee xamar laga soo daabulay oo ku noqdo xeryihiin. lama qaato amarka qaarkii oo macsiyada ha qaadanina. mas-uuliyaddaasna in meel la saaraan u baahannahay. waxaa dhibaatada dadka reer Geda maanta haysata ee looga barakacay 12 sano ka hor deegaano la xoreeyey maanta inay sidaa noqoto lama aqbali kareen. waa in mas-uuliyaddeeda meel loo helo. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. waa inoo furaya baarlamaanku.